إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سورة التحريم مدنية aayadaheedana waa 12 aayadood. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nabiyyu nabiyow lima tuharrimu maxaad isaga xaaraanteynaysaa maa shay ahalla Allahu ilaahi u xalaaleeyay laka adiga uu ku xalaaleeyay tabtaqi xaal adigoo raadinayo mardaata azwaajika xaasaskaaga raali ahaanshahoodii والله إلهينا غفور وألا دنبداف بدن رحيم هدنا نحريس بدن. آياتها صوت يكسو دقين وحال شيئا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقهيسا وقيمين جري كل كيدي ناقوال بقل كيدي أيوسينا يي عليه الصلاة والسلام توكدي حفصة مركي لقاري ayaa xafsa waxay idin weydiisatay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aabaheed iyo hooyadeed inay soo booqato ilaan xafsa waxa dhalay sayyidina Umar. Xafsa bint Umar weeyaan. Marka aabaheed iyo Umar inay soo booqato ay nabiga ka fasax qaadatay alayhi salatu wassalam. nabigana wuu u fasaxay oo u idmay sallallahu alayhi wa sallam. markay baxday nabiga wuxuu fariin u diray jaariyadiisa Maariyatul Qibtiyya ayuu nabigu fariin u diray alayhi salatu wasalaam. maxaa yeelay Maariya adoon bay iska ahayd qiiminta waxba kuma laha, laakiin naaga xoryaasha ah sagaalka naag walba tookadeeday leedahay. Maariya maadaama jaariyad ay tahay kalna malaha tookana malaha, markaasuu fariin u dirsaday nabiga Maariya inay u timaado. way u timid radiyallahu ta'ala anha wala muaamalooday nabiga sallallahu alayhi wasallam. gurigii Xafsa ayuu kula muaamalooday. Xafsa way soo laabatay, waxay arkaysaa Maariya gurigeedii ku dhax jirto. markaasay maseertay, aad bay u maseertay. ilaa masarka waa wax naagaha lagu abuuray, aad bay u maseertay. markaasay ku tiri nabiga sallallahu alayhi wasallam, anigoo maqan ayaa gurigeyga soo gelinaysaa miyaa? weliba firaashkeyga ayaad kula mucaamaloonaysaa miyaa? arintaan wax kale u arki maayo ku tiri inaan agtaadi waxba ka ahayn maahan. agtaadi aad baan ugu liitaa, agtaadi aad baan waxba kama ihi agtaadi. markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam isagoo raali gelinayo, waanba iska xarimayba Maariya Soomaha waxaad ugu haysay Maariya waa iska xarimay ee cidna ha u sheegin. nabiga wuu baxay alayhi salatu wasalaam. Xafsa agteedii markuu ka dhaqaaqay, Xafsa iyo Aisha waxay ahaayeen labo aad isku qalbi fiyow oo saafi isku ah, waxba kala ma qarsanaynin. mar allaala markuu nabiga baxay alayhi salatu wasalaam, Xafsa iyo Aisha haddana jidaar baa u dhaxeeyay, bis hal dirbiya u dhaxeeyay. markuu nabiga ka baxay bis la markiiba jidaarkii u gargaraacay saaxiibteedii, ay maxaad war qabtaa nabiga Maariya uu iska xarimay, ogaantaadi lahaw. maxaa lagu yiri Maariya cidna ha u sheegin? waxaa la yiraahdaa la ta'mananna rajulan bimra'atin wala imra'atan bisir. nin naag ha ku aminin, naagna sir ha ku aminin. sir ma celin karto ilaa kuwa ilaa u naxariistay hal waa iska dhif, laakiin nin naag ha ku aminin, hadihin gabadhan iyo ilaal agtaada ha ku joogto abadan. naagna sir ha ku aminin. Xafsa radiyallahu ta'ala anha saaxiibteedii u sheegtay isla markiiba, haye maxaad war qabtaa saan baa jiro? nabiga ilaahi baa u sheegay sallallahu alayhi wasallam in Xafsa arintii ay gudbisay. nabiga aad buu u xanaaqay, yaa ku sheegay ya rasuulallah markuu ku qabtay Xafsa. waxay u maleynaysaa Aisha inay u sheegtay, laakiin ilaahi baa u sheegay, ilaahi baa u waramay. markaasuu nabigu ku dhaartay naagihiisa bil inuusan u dhawaanaynin alayhi salatu wasalaam. markaasaa la yidhi yaa ayuhan nabiy, wax ilaahay ku xalaaleeyay maxaad isaga xaaraanteynaysaa? sababta ayada ay ku soo degaan arin kaleetana waa la sheegaa.
nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu aadi jiray Zaynab bint Jahsh gurigeedii maalin walbo naagaha kala tooko soo malahayn laakiin Zaynab bint Jahsh maalin walbo gurigeedii ayuu aadayaa ujeedadana waxay ahayd malab ayaa Zaynab agteeda yaalo nabigana malabka aad u jeclaa malabkaas uu ka cabi jiray naagaha kala malab ma hayaan Zaynab marka xoogaa maadaama malab ay hayso nabigu maalin walba u tagaya xoogaa malabkiiyo ka soo cabaya naagihii way maseeray Aisha iyo Xafsa ayaa isku tashadeen waxay yiraahdeen warkaale maalin walba Zaynab maxaa loogu tagaa bal aniga hadduu ii yimaado adigana uu ku yimaado hadal aan ku dhahno nabiga haye maxaa leenahay aan dhahno waxaad cuntay maqaafiir geed kala yiraahdo waa raashin macaan badan laakiin xoogaa shiir buu wataa nabigana sallallahu alayhi wasallam marna ma jecleen wax baa ka soo shiiray in la yiraahdo abadan ma jecleen yaana waxyaabo udgoon dhan isaga ugu udgoon badnaa sallallahu alayhi wasallam dhididkiisa ayaa caraf ahaa alayhi salatu wasalaam asxaabta dhididkiisa intay miirtaan ay dhalo ku sugan jireen ay mamarsanayeen udugaas wax u dhigmana ma jirin abadan marka hadii lagu yiraahdo wax baa ka soo shiiray ka waran kiisaas aha laakiin naago waa iska naago bas waxba geedkaas maqaafiir ayaad cuntay aan dhahno ujeedadooda waa maxay malabka inay nacsiiyaan malabka haduu nocone maalin walba Zaynab ma loo tagayo marka meesha ay ka dagaalamayeen waa halkaas markaas ay ku tirin aniga haduu ii yimaado saasaan leeyahay geedka maqaafiir kala yiraahdaa soo cuntay adigana saas ku dheh hay nabiga Aisha u tagaya alayhi salatu wasalaam ya rasuulallah wax maqaafiir la yiraahdo ma soo cuntay wax baa ka soo shiiraya maya nabiga waa daacad alayhi salatu wasalaam maya ma cunin laakiin malab baan ka cabay Zaynab agteeda ayagana waxay diidayeen waa maxay Zaynab agteeda xoogaa malab aan ka soo cunay waxaa laga yaabaa malabka shinidii laga soo lisay shinida inay daaqeen geedaha maqaafiirta shirka meesha inuu ka yimid ayaa dhici karta wuu baxay xabsu u tagay nabiga hadalkii oo kale geedka maqaafiirka la yiraahdo ma cuntay wax baa ka soo shiirayay maya Zaynab agteeda la malab ka cabay waxaa laga yaabaa shinidii laga soo lisay geedaha maqaafiirta inay daaqeen oo cuneen shirka meeshaas inuu ka yimid ayaa dhici karta war masaasa war malabka haduu dib ii keenay ma bacabaayo wallahi ma cabaayo ku dhaartay nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas ay soo degtay aayadan ya ayuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak wax ilaahi ku xalaaleeyay maxaa siga xarimaysan ya ayuha nabiy bal fiir nabiga qiimihiisa alayhi salatu wasalaam iyo darajadiisa say u sarayso ya muhammad lama dihin ya ayuha rasul ya ayuha nabiy laakiin nabiyada kale markii loo dhawaaqay anbiyada kale ya nuux ya zakariya ya yahya ya ibrahim anbiyada magacyadooda loogu yeeraya laakiin nabigeena alayhi salatu wasalaam marka loo dhawaaqayo ya ayuha rasul ya ayuha nabiy taas waxay ku tusinaysaa maqaamkiisa inuu sareeyo sallallahu alayhi wasallam lima mahayba tuharrimu asiga harimaysa ma ahalla Allah lak wax ilaahi ku xalaaleeyay maxaad asiga harimaysa ya rasuulallah had wax nabiga xalaal aha isaga uu iska harimay ma jiro inma imtana wuu reebtoomay soo ma jiro dad malaayga hada soo xalaal ma aha dad soo ma jiro malaayga aan cunaynin digaago kale soo ma jiro dad aan cunaynin yani saasoo kale xaraamay may dhahayaan maya laakiin ayaga dabeecadooda siinaynin inay cunaan marka waxyaabahan xoogaa nabiga saas oo kale ka moogmaan wax xalaal ah iska xaraam ka dhigta ma ahe nabiga alayhi salatu wasalaam tabtaqi xaal adigoo raadinayo mardaata azwaajik xaasaskaaga raali ahaanshahooda adigoo raadinayo maxaa siga xarimaysa waxa ilaahay ku xalaalay markooda ka baxnaagahaas wallahu ilaahi ghafuurur rahiim weeyaan hadana waxba kuma haysano ilaahi waa ghafuurur rahiim laakiin naagahaadi iska ilaali qad farada Allah ilaahi wuu qadiray oo wuu jideeyay lakum idinku wuxuu idin jideeyay tahillata aymanikum daaryaalkiina furfurideedi ayuu ilaahi idin xalaaleeyay bil kafaara gud aad isigu furfurtaan wallahu ilaahina mawlaakum gargaarihiina weeyaan wa huwa ilaahi al-aliim wa al-ilmi badan al-hakiim hadana xikmad badan
قد فرض الله إلهي وحو جديي لكم إليك وحو إلي جديي تحلة أيمانكم داريالكين فرفردودي أيو إلهي إلي جديي تبارك وتعالى بالكفارة كفارة قد أسيب فرفرتان تحل هذا وحويان من حل العقد أيالكين أما من حل العقد قلت يالك أيو فرفري وحيا ولو جنودي أيو فرفري لأن قفك مركو دارانيو waxay la mid isagoo wax gunudaayo oo kale wallahi waxaas ma sameeynay wixii buu gunudayaan wixii buu iska xaraantiyeenaya wixii buu iska reebayaan wallahi waxaan ma sameynayo wax buu gunuday marka waxaas uu gunuday maxay u baahan tahay in la furo see loo furaa kafaaro gud وقد فرض الله إلهي وجدي تبارك وتعالى لكم إليكم حوين جدي تحلة أيمانكم دارياكي لفرفردودي أيو إلهي إلي جديي بالكفارة كفار قدنا كفر فرطان والله إلهينا مولاكم قرقاره نواية تبارك وتعالى وهو إلهي العليم والعلم بدن الحكيم وهدن حكمة بدن وإذ وقت حسن نبي محمد وعليك الصلاة والسلام أسر النبي نبي أوسريستي إلى بعض أزواجه حاسسكي سقارك وذي وكسريستي حديثا ورء كسريستي ورء ووركي نبي وكسريستي حاسكي حفصة وربو كسريستي أيه فلم ولب وركاس وحالش وحو ودري ان حفص يكون بشاريس انيغا بعديغيدي خلافه وحا قبن دون ابو بكر كدبن اباها عمر لكن شبه تبنها وشيغين وحي دم بي فافسي فلما قرتي نبأت اي ورنتي حفصه به بالحديث وركي اي اشاكتي عائشه مركي اشاكتي او واظهره الله إلهي نوركي أوبوجيي عليه على نبيه نبي سو أموجيي عرف نبي بوغرنسيي عليه الصلاة والسلام بعضه وركي قاركيسه وأعرض وسجيستي عن بعض القارك كلاتا فلما قرتي نبأ أوبرمي نبيه ها حفص مركو أوبرمي به بما أفشت وحي أيفا في سي مركو أوبرمي قالت وحي تري حفصة من كما أنبأك كوبرمي هذا أرنكن ياكو شاقي قال نبي وحوير صلى الله عليه وسلم نبأني وحائي ورمي العليم أليه علمي قبطنا الخبير قنؤغا إلهي وحوليه جل جلاله وإذ وقتك شاكين بمحمد وعليك الصلاة والسلام أسر النبي نبي قصر يستي إلى بعض أزواجه حاسسكي سقاركو دي حديثا ورؤ قصر يستي فلما قرتي نبأت أي ورنتي حفصة به بالحديث وركي أي ورنتي عائشة مكي أشكتي وركي أو وأظهر أموجي هو أجل الحديث وركي الله إلهي أموجي عليه على نبيه نبي قيس أموجي إلهي با أشهد نبي قيس جبريل با لو صدري هاي يا رسول الله أغا وركي حفصة عائشة بي أشكتي عرف نبي وقرنسيي عليه الصلاة والسلام بعضه وك قاركيسة وأعرضه وسجيسي عن بعض القارك كلاتا معناه حفص انتو أتغي وركي أي فافسي بو قار كمتا كو قبصدي قار نبو سجيسي معناه وحي أي فافسي كلكم ولا قوان قار كمتا أي قاس إي كان وات فافسي وحي كلاتنا وقامس النبي صلى الله عليه وسلم يعني تا waxay tusinaysaa nabiga aqligiisa kaamilnimadeeda عليه الصلاة والسلام laakiin qofka dabaalka qof markuu eedeynayo kulli wajiga u saaraya kan ba samaysay kanaad yeeshay wixii buu tirtirana lama rabo laakiin qofka caaqilka ah ee kariimka ah ee wanaagsan oo dulqaadka badan qof haduu eedeynayo hal oo kale iswajiga ka saaraya wixii kalaatan uu ka idalaawana sidaasana fiican yani qofka wax walba wajiga in laga saaro waa laga fiican yahay isagana hal xabada u sheegtay wixii kalaatan uu isgarana Allah isilaaliyo leeyahay maalin baa waxa dhacday asmaci sheekh la yiraahdo sheekh asmaci sheekh weyn buu ahaa gabar baa u timid waxay rabtaa su'aal inay weydiiso su'aal ay weydiinaysay ayadoo iska dumar oo masaakiin oo bini aadamku iska daciif ayadoo su'aashii weydiinayso
ayaa waxaa ka fakaday aariyo xoogaa way xadastay way dhuustay waa hadda adigoo sheekh agtiisa taagan adigoo rag ah adigaaba isku yaxyaxaayaba ayadoo hadda bilcaana ka waran waa aad bay u naxday way aad bay ula yaabtay way naxday dhirid waaweyn baa ka yimid asmacina wuu dareemay inay naxday dhuusadiina wuu maqlay asaga isma dareensiinin laakiin markaasuu ku yidhi codkaadii kor u qaad maxaa tiri su-aasha igu soo celi way u qaylisay sheekh waxaan rabaa su-aashaan saas iyo saas iiga waran yaa war kuma maqlay codkaadii kor u qaad way ugu celinaysaa sheekhow waxaan ku dhahay mas'alada sidaan iyo sidaan iiga waran yaa war xoogaa si fiican wax uma maqlee codka kor u qaad muxuu dareensiinayaa inuusan maqlinbo markaasay tiri alxamdulilah sheekh ma imaqlaya sheekh ma imaqlin bay tiri alxamdulilah wuuna maqlayaa laakiin muxuu dareensiiyey inuusan waxba maqlinba sidaasaa la rabaa walaalayaal markaasay qalbigeeda u degayo markaasay tiri alxamdulilah sheekh ima maqlin markaasay su-aashii si fiican u weydiisay markaasuu ugu jawaabay asagana yacni lama rabo in lisdabaaliyo qofka bini aadam waa daciif waa miskiin marka arrimahaas oo kaleeto in sidaas loola dhaqmaa fiican hadda fiiri nabiga sala allahu calayhi wasalam dembiyadii dhan xabsa wejiga kama saarin qaar wuu u sheegay qaarna wuu ka leexday carafa bacda warkii qaarkiisa wuu garan siiyey wa acrada can bacd qaarka kaleetana wuu ka jeestay falamaa goortii nabba'a uu waramay nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam haa xabsa markuu u waramay bihi bimaa afshat wixii ay faafisay markuu u sheegay qaalat waxay tihi man kumaa anba'aka kuu waramay haadaa warkan yaa rasuulallah yaa kuu sheegay waxay u malaynaysaa xafsa inay gadatay saaxiibteedii aacisha inay u sheegtay u malaynaysaa markaasaa qaala nabigu wuxuu yidhi nabba'anii alcaliimu alkhabiir allihii caliimu alkhabiir ahaa ayaa ii sheegay markaasaa la yidhi in tatuubaa labadiini aacisha iyo xafsa lala hadlayaa kolka si toos in tatuubaa labadiinaan isbahaysanayo xafsa iyo caaishooy haddaad toobad keentaan ila allah ilaahay haddaad u toobad keentaan falitawbatikumaa muujibun wa sabab toobadkeenkiina waxaa u sugnaaday wax waajibinaya inaad toobad keentaan sababna wuu leeyahay inaad toobad la yimaadaan leanna idinkaa isbahaysanayo faqad saqad way iilatay quluubukumaa quluubtiini way iilatay can ilxaqi xaqa way ka iilatay wain tadaaharaa haddaad iskaalmaysataan aacisha iyo xafsooy calayhi calaa rasuuli illaah rasuulka haddaad isugu kaalmaysataan oo dhibkiisa aad isugu kaalmaysataan fa ina allaha ilaahay huwa ilaahay mawlaahu gargaarihiisa weeyaan ilaahay baa nabigiisa u gargaarayo wajibriilu jibriilne mawlaahu weeyaan wuu u gargaarayaa wasaalixu lmu'miniin mu'miniinta koodii saalixa ahne oo suubanne wuu u gargaarayaa qolka isjira weeyaan nabiga ha isugu bahaysanina waalmalaa'ikatu malaa'igtani bacda dalika ay bacda nusrati illaahi wa jibriila wa saalixi lmu'miniin intaas bacdigoodii malaa'igtani dahiirun waa guuto nabiga u hiilinayso weeyaan in tatuubaa aacisha iyo xafsoy haddaad toobad keentaan ila allah ilaahay haddaad u toobad keentaan falitawbatikumaa muujibun wa sabab toobadkeenkiina waxaa u sugnaaday wax waajibinaya iyo sabab buu leeyahay lianna inaad toobad keentaan wax waajibinaya ayaa meesha yaalay idinkaa dembi galay sababna meesha wuu yaalaayo waa isbahaysateen inaad toobad keentaan muujib iyo sabab ayuu leeyahay faqad saqad way iilatay quluubukumaa quluubtiini way iilatay can ilxaqi xaqa way ka iilatay wain tadaaharaa haddaad iskaalmaysataan caaisha iyo xafsooy calayhi cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga dhibkiisa haddaad isugu kaalmaysataan fa ina allaha huwa mawlaah ilaahay baa gargaarihiisa wajibriilu wasaalixu lmu'miniin jibriilna nabiga wuu u gargaarayaa mu'miniinta kuwoodii suubanne way u gargaarayaan weeye kolka isjiro weeyaan waalmalaa'ikatu malaa'igtani bacda dalika ay bacda nusrati illaahi wa jibriila wa saalixi lmu'miniin intaa bacdigoodii dahiirun waa guuto nabiga u hiilisa calayhi salaatu wassalaam
casaa wuxuu mudan yahay rabbuhu nabiga rabbigiisa wuxuu mudan yahay in طallaqakunna hadduu idin furo nabiga sala allahu calayhi wasalam an yubdilahu ilaahay nabiga inuu bedelsiinayo ayuu mudan yahay aswaajan hablo inuu nabigu ugu bedelsiinayo aswaajtoo khayran khayr badan minkum idinka khayr badan aswaajtoo muslimaatin muslimaat ah kuwaasoo mu'minaatin mu'minaat ah kuwaasoo qaanitaatin adeecayo wixii la amra adeecayo kuwaasoo taa'ibaatin towbad keenayo dunuubta ka toobad keenayo kuwaasoo caabidaatin ilaahay caabudaya tabaaraka wa tacaala saa'ixaatin kuwaasoo sooma tayibaatin garoobo ah wa abkaaraa iyo gabdha ah ilaahay hadduu idiin furo nabiga hadduu idiin furo sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu mudan yahay nabigiisa inuu ugu bedelo gabdho idinka fiican idinka khayr badan oo muslimaata mu'minaata adeecayo taa'ibaata caabidaata soomayo garoobo iyo gabdhaba ilaahay baa u haayo ma arkaysaa ha isku malaynina idin kale inaad joogtaan gabdho idin kale naaga inaad tihiin haddii iskaalmaysigaan aad joojin weydaan oo nabiga uu idiin furo sala allahu calayhi wasalam kuwa idinka khayr badan ilaahay wuu u heli karaa nabigiisa kolka tartiibtiina cagaha dhulka dhiga tartiibtiina yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow quu ilaaliya anfusakum nafafyaalkiina ilaaliya wa ahliikum iyo ehelkiini naar ka ilaaliya naftiini iyo ehelkiini naar ka ilaaliya eheladiina waa maxay xaasaskiini owlaadiini kulli naar ka ilaaliya naartaasoo waquuduhaa waxaa lagu hurinayo annaasu dad uu yahay waalxijaaratu iyo dhagaxaan ay yihiin naartaa waxaa lagu shidayo ee lagu hurinayo waa dad iyo dhagaxaan naartaasoo calayhaa korkeedii ahaaday malaa'ikatun malaa'ig hareeraheedii ay joogaan malaa'igtoo khilaadun wada qalafsan malaa'igtaasoo shidaadun adag naarta waxaa ilaalinayo oo hareeraheedii jooga malaa'ig wada qalafsan adag xoogna badan ma arkaysaa oo loo abuurayba dembiilayaasha cadaabitaankoodii loo abuuray malaa'igtaas waxaa loola jeedaa marka sida qurtubi uu leeyahay raximahu llahu tacaala waa zabaaniya malaa'igta zabaaniyada weeyaan waa kuwa quluubtoodii qalafsan oo adag cidna uma naxariisanayaan waxaaba lagu kallifay hawshoodii uu yahay dembiilayaashaas inay cadaabaan haddii naxariis laga dalbo ma naxariistaan waxaaba ay ka samaysan yihiin caro iyo xanaaq ay ka samaysan yihiinba dembiilayaashaas inay cadaabaan baa la jeclaysiiyey sida bini aadamka loo jeclaysiiyey raashinka inuu cuno cabitaanka uu cabo ayagana malaa'igtaas waxaa la jeclaysiiyey gaalada ay dembiilayaashaas inay cadaabaan marka malaa'ig sidaasa ayaa jahannama iyo naarta hareeraheedii ahaaday malaa'igtoo laa yacsuuna allaha ilaahay aan caasinaynin maa amarahum wixii uu amray aan caasinaynin laa yacsuuna allaha malaa'igtaas aan ilaahay caasinaynin maa amarahum ilaahay wuxuu amray aan caasinaynin maaga allaha lee ka bedelo laa yacsuuna allaha ilaahay ma caasiyaan maa amarahum wuxuu amray ilaahay ma caasiyaan wa yafcaluuna way samaynayaan malaa'igtaas maa yu'maruuna wixii la amrayna way samaynayaan yaa ayuha aladiina kuwii kafaruu kufrigayow laa tactadiruu ha cudurdaaranina alyawma maanta ha cudurdaaranina maanta qiyaamaha wax cudurdaar la yidhaahda iska ilaaliya inamaa tujzawna waa la idin abaalmarinayaa un maa wixii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii camal fala maanta gaalooy cudurdaar idinkama aqbalayno cudurdaarna waxba idin tari maayo kolka maanta waxba ha cudurdaaranina wixii aad samaysateen unbaa laydin abaalmarinaya alyawma tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat laa dulma alyawm ina allaha sariicu lxisaab naf waliba maanta waxay shaqaysatay ayaa loo abaalmarinayaa maanta dulmi ma jiro uu leeyahay ilaahay jala jalaaluh maanta dulmi ma jiro cid la dulminaaya ma jirto ilaahayna waa alle sariicu lxisaabi ah ilaa maa callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim
رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف. اللهم إنا كان إلى الله إلهي أطوبت كان تبارك وتعالى توبة إلهي أطوبت كان توبة ونصوحا نصيحة بدن وردتك مؤمنين تأهو إلهي نقشو نصيحة بدن نصيحة داس توبة نصيحة بدن وامحي معنى توبة صادقة خالصة توبة أو صادقة أو صافية أو خالصة إلهي أطوبت كان. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أيال ويديي توبة نصوحة وامحي بالي مركاسو يري هي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. توبة نصوحة وحالو رجي لابو يري قفك إنو توبت كينو كتبنا دنبكي أوسن دب دنب أغلاوان سيد عانها مركي لليسو عندها لغو علين كرين ساسو كالت قفك إنو سن دنبكي مرد دنب أغلاوان إلى بن آدم باطي وحي وكادع كرا اسك إلى المرد. توبة نصوحة لإمادة مؤمنين عسى ربكم ربكين وحو مذنيهي أن يكفر إنو أسطره عنكم حقين وإذن كأسطره سيئاتكم قفف يالكين إنو إذن كأسطره ربكين وحو مذنيهي تبارك وتعالى وحي قفف إذن كدعينه إنو إذن كأسطره وإذن نحريسته وإذن سامحه تبارك وتعالى. توبت كينا بس ويدخلكم إلهي إنو إذن قليو جنات جنوج إنو إذن قليو جنات كو تجري أي سعانيسو من تحت قصورها وأشجارها الأنهار وبيالا إدرسان آيان يوم مال حس لا يخزي أوسنه جنين الله إلهي أوسنه جنين النبي نبي أوسنه جنين عليه الصلاة والسلام والذين كبين أوسنه جنين آمنوا رميي معه نبي معيس رميي أنه جنين إلهي كباس معه ذا آمنوا إسيق تعلجي أما معه لا يخزي إسيق تعلجي معه معيس نبي معيس أنه جنين كباس إلهي مالتها نبي مهو جنين مؤمنين تنمهو جنين نورهم نبي المؤمنين نور كودي يسعى وحوس عنايا بين أيديهم هرتودي وبأيمانهم إيه مدك يا شودي نور كودي وحوس عنايا هوري مدكت أصدرات يكون بيان هرتودي إيه مدك تودي النور كاساس عنايا يقولون مركز إليه المسلمين ربنا يا ربنا ربنا يا أتمم لما يستر لنا أنا نو لما يستر نورنا نور كي إله نو لما يستر وحيسنا أوليهن منافقين بعدك كل حجره كل دكانيو كل سومي ومنافق منافقين تقيامه ما كيلا قارحوغا نور بالسينا يا وحيره النور اسك ضعيفة كتب إيجو السعودة نور كودي أجا كدمايو نور كودي مركو دمه مؤمنين مركز إلهي بريا ربي يو نور كينا هنقدمين ربي يو نور كينا نودا ما يستر ربنا يا ربنا ربي غينيو أتمم لنا نورنا نور كي إله نودا ما يستر واغفر لنا إله نودا بيداف وحينا قدعي إله نوداف إنك إله وليك قدير عليه أبود بدن آياته على كل شيء وحبل بكركي سكو أبوده. يا أيها النبي نبي جاهد الكفار قال ذا لجهاتا والمنافقين منافقين تنا لجهاتا قال ذا السيف كل جهاتا منافقين تنا عربك كل جهاتا أي حجة أي برهان أكلك واغلظ قلف سناو عليهم قال ذا أي منافقين تكركوا ذي قلف سناو ومأواهم مكانه يدكودي جهنم ويجان هوغودي وجهنم ماشي كسكنانا يان وجهنم آيوهودي دنب وجهنم وبئس وحاباس يشيو حمادي المصير ميل لو أهاد جهنم أيا أباس يالتي. ضرب الله مثلا آياتها عن إلهي تصالى إلى مثل بونسينيا إلهي وحبر سبحانه ضرب الله إلهي بويالي امرأة نوح نبي نوح ناكتيسة إيا وامرأة لوط نبي لوط ناكتيسة إلهي وحكيالي مثل أيو كيالي تصالى للذين كفروا كو كفريي أيو إلهي مثل أغيالي
امرأة نوح ومفعول كي أول ويان مثلا ومفعول كي لوات لوات أصناغوت أو كان أي هذين تحت عبدين لبا أدون هوستو دي أي هذين عبدينكو من عبادنا أدون ما هي كمتا عبدينكو صالحين سوسوبا لوات أصناغوت لو أدون سوسوبان في عنو نبيال أيا هوستو دي أهادين بمعنى لو نبي أيا ناغها سيتي قوي وناكتي نبي نوح ناكتي نبي لوط إلى نبي لوط باقبو مثل نبي نوح قبو ونبيال أيه فخانتا لبدي ناغوت وحيقيان سدين هما أجل عبدين الصالحين لبدي أدون ونمناك سنايا بقيام بيستين فلم يغنيا لبدي أدون ونمناك سنا مديقين عنهما عن المرأتين لبدي ناغوت حقو ذي كما ايسان ديقين من الله أي من عذاب الله إلهي عذاب كيس حقيسا شيئا وحبه وقم ديقين ويجان وقيل وحاليري ادخلا قال لبدي ناغوت النار نار تقل مع الداخلين كوب قلايا لقل إلهي جل وعلا وحوليه ضرب الله إلهي وحوي لي مثلا ضرب الله إلهي وحوي لي امرأة نوح النبي نوح ناكتيسة إيا وامرأة لوط النبي لوط ناكتيسة وحوكي لي مثلا تصالى أيوكي لي للذين كفروا كو كفريي أي إلهي تصالى لي سبحانه وتعالى معناها ناقها النبي باقبه مركا لديهم مايو الله نبي على قبو أيضنا هالسكا دافو لديهم مايو ما دام النبي نبيال بأي قبان أيها هذه قلعدين وقال ماذا أي قاتين أي سوء إسلامي وايين خلاص وحبتها كما بتباديا وحبكم بتباديا نبي يعني نينك هذا يا نبي وحبوا مترايو كانتا لولا سناغوت وحيا هذين تحت عبدين لبا أدون هوستو دي أي هذين عبدين كو من عبادنا أدون ما هي كمتا عبدين كو صالحين سوسوبا أيه فخانتا لبدي ناغوت ويخيان سدين هما أي العبدين الصالحين فخانتا أي المرأتان لبدي ناغوت وحيخيان سدين هما أي العبدين الصالحين لبدي أدون ونوناكسنا أي خيان سدين maxay ku qiyaasadeen gaalnimo iyo iimaan la'aan qiyaanada laga ma wado jirkoodii inay gadanaya laga ma wado ama inay zinaysanaya laga ma wado yaani naag oo nabi qabo biligeeda ma zinaysan naag nabi qabo ma zinaysanayso arimahaas kuma kicin laakiin waxay ku qiyaasadeen waa maxay gaalnimadaas iyo iimaan la'aantaas فلم يغنيا لبدي أدون أجل عبدان الصالحان لبدي أدون ما يصدق عنهما عن المرأتين لبدي ناغوت من الله أي من عذاب الله إلهي عذاب كيس شيئا وحبه أقوم الديقين ويجان ناغها ناغا قبنه على بدبادي وحبه ويغتري واجين وقيل أيضا هدينها نمكينا نبي أهل بدبادي أبدا لذي يلماي وقيل وحالير ودخولا قال لبدين ناغوت النار نار تقل مع الداخلين كوبقلا يلقلا وضرب الله إلهي بايلي امرأة فرعون ناتيسة مثل بكيالي مهما للذين آمنوا كبروا ميجي أي إلهي مثل ويالي تبارك وتعالى إذ وقت قالت أي تري ناتي فرعون ربي يا ربي ربي يو ابني بس لي أنيجا إيدس عندك أكتاري أو جنة بيتا قري إله يقدس في الجنة جنة دحري قري إله يقدس ونجني إله يقبض بالي من فرعون إله يقبض بالي وعمله عمل كيسا إله يقبض بالي ونجني إله يقبض بالي من القوم قومك حقه دي يقبض بالي قومك الظالمين ظالمين تاهايين إلهي جل وعلا وحوليه وضرب الله إلهي وحويا لي امرأة فرعون ناتيسة مثلا بكيا لي مهما للذين آمنوا كبروا ميجيبوا مثل ويا لي بل فير هذا ما يشان لبدي هذا ناغوت أو نوح يوفر لبدي ناغوت أو نوح يلوت كلا قوي يا مثل ويا لي قالت فرعون ناتيسة يا مثل ويا لي مؤمنين لأن فرعون ناتيسة مسلمات بي أهيد
mu'minah muslimah waxay rumaysay nabi muuse way rumaysnayd fircoon kii ilaahnimada sheegtay buu ahaa marka laakiin diinteedii ku sugnaatay iimaankeedii ku sugnaatay wuu handaditaankiisa iyo wixiisa dhammaan shartiisana ilaahay baa ka badbaadiyey kumaysan fitnoobin id waqti qaalat ay tiri naagtii fircawn ay tiri rabbi yaa rabbi rabbiyow ibni ilaahow dhis lii aniga ii dhis cindaka agtaadii ilaahow iiga dhis baytan guri ilaahow iiga dhis agtaadii oo jannada ah fil jannati jannada dhexdeeda ilaahow guri iiga dhis weeyaan aasiya ayaa la dhihi jiray aasiya bintu musaaxib nabi muuse rumaysay calayhi salaam warkii baa fircoon gaaray wuxuu amray in la dilo ayuu yidhi ilaahay shartiisuu ka badbaadiyey tabaaraka wa tacaala rabbi yaa rabbi rabbiyow ibni ilaahow dhis lii aniga ii dhis cindaka agtaadii oo jannada ah baytan ilaahow guri iiga dhis weeyaan fil jannati jannada dhexdeeda guri ilaahow iiga dhis wanajini ilaahow iga badbaadi min fircawna wa camali fircoon iyo camalkiisa ilaahow iga badbaadi wanajini ilaahow iga badbaadi min alqowmi qowmkii iga badbaadi qowmkii aldaalimiina daalimiinta ahaayeen ومريم واذكر حس مريم حس ابنة عمران gabadhiisa ahayd التي taasoo أحسنت ilaalisay فرجها فرجgeedii ilaalisay فنفخnaa aan afuufnay فيihi dhexdiisa min ruuxinaa ruuxayaga aan ku afuufnay وصدقت way rumaysay بكaliمaaتi رabbihaa rabbigeedii kalimaadkiisay rumaysay وكتبihi kutubtiisana way rumaysay وakaanat way ahaatay maryama min alqaanitiina kuwa ilaahay adeeca ay ka mid ahaatay wa maryama wadkur xus nabi muxamedow calayhi asalaatu wasalaam maryama xus maryamadaasoo ibnata cimraan gabadhiisa ahayd allatii taasoo axsanad ilaalisay farjahaa farjigeedii ilaalisay wax meelaha kasoo agdhowaanaya ma jiro farjigeedii way ilaalisay fanafaknaa aan afuufnay fiihi dhexdiisa min ruuxinaa ruuxayaga aan ku afuufnay yani fiihi fii fatxati jaybiha jeebkeedii meesha ka furan ila jeebka waxaa la yidhaahdaa kan anaga qalimaanka aan ku ridan lacagta aan ku ridana ma ahe waa meesha cambuurka laga gashto madaxa jeebka kan baa la yidhaahdaa marka jibriil baa loo soo diray cambuurkeedii meesha jeebka ahe qoorta ay ka gashtaan meeshaan ayuu afuufay afuufitaankaas ay uur ku qaadayba biqudrati illaahi jala wacala وصدقت way rumaysay بكaliمaaتi رabbihaa rabbigeedii kelimadihiisay rumaysay rabbigeedii kelimadihiisa waa maxay صحف إبراهيم صحف موسى صحف shiith صحفtaasay rumaysay بكaliمaaتi رabbihaa rabbigeedii kelimooyinkiisay rumaysay وكتubihi iyo kutubtiisa samaawiyada ahayna way rumaysay وakaanat waxay ahaatay maryam min alqaanitiina kuwa ilaahay adeeca ay ka mid ahaatay ilaahay ma dhihin wakaanat min alqaanitaati ila jamcu lmu'anath saalim ayad maadaama naag ay tahay min alqaanitaati ilaahay ma dhihin jamcu lmudakar saalim oo ilaahay ka dhigay tabaaraka wa tacaala yacni darajadii ninnimada dadka oo xooga badan ayaa la raacsiiyey wakaanat waxay ahaatay maryam min alqaanitiina ragga ilaahay adeeca ay ka mid ahaatay nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam kamula min الrijaali kahiir walam yakmul min الnisaaءi ilaa aasiyatu imra'atu fircawna wamaryamu ibnatu cimraana wakhadiijatu bintu khuwaylid wafadlu caaishata calى الnisaa kafadli الthariidi calى saa'iri الطacaam ragga in badan ayaa kaamil ay ka noqdeen oo ka buuxsamay laakiin naagaha xaggoodii ilaa waxaa kaamil noqday aasiya gabadha la yidhaahdo fircoon naagtiisa iyo maryama binti cimraan iyo khadiija bintu khuwaylid caaisha fadligeedii naagaha kale ay ku leedahayna waa tariidka muufada la jijibeeyey oo maraqna lagu daray goosaarna ku jiro oo si fiican u qoyan fadliga uu leeyahay raashinka kale fadliga uu ka leeyahay bay caaisha naagaha kaleeto korkooda ay ku tahay وakaanat waxay ahaatay maryama min alqaanitiina ragga ilaahay adeeca kuwa ilaahay adeeca ay ka mid ahaatay wallahu subxaanahu wa tacaala